waxaa maanta sharci rabaa saddexdan application oo ku xiri kartid gmailkaaga, lambarkaaga waxaa ku xiri kartaa gmailkaaga, dukumiintiyadaada, shahaadooyinkaaga waxaa ku xiri kartaa gmailkaaga, sawiradaada waxaa ku xiri kartaa sidoo kale gmailkaaga. wax kaa lumaayo ma lahan. Markaa bilaawna cashirka waxaa soo furna, waxaa ku hormarna mobile phone. waxaa halkan ku seefeynayna lambarkeena eber 6 waxaa ku dhufanaysaa add to connect plus geli contact. halkan ayaa soo furaysaa, wuxuu ku dhahay simku seefo, lambarka phone ku seefo maskaxda mobilka. marka mobilka restore u dirtana waa baxaa lambarka. simku seefo, simku doo kaa lumo lambarka wuu kaa baxaa. gmail ku seefo, marka waxaa saaranayna gmailkan waa kaa isaaranta tigta gmailka ku dhufanaysaa, magaca ku seefo rabtida inta ku qoranaysaa bile oo kale waxaa ku taabanaysaa seef. hadda lambarkan marnaba igama baxaayo, wuxuu igu seefan yahay gmailkayga. mobilkan haddaa ka kacsado gmailkayga oo lambarkan u baahanay waa ka heli karaa. okay, kan meeshaan ku egyahay waxaa gelaynaa hadda document. sidee document ugu kaydsan karaa gmailkayga? waxaa u baahan tahay applicationka la dhahayo Drive. hadduu mobilka ugu jirin Play Store ayaa kasoo degsan kartaa. marka Drive waa furaynaa. Drive markuu saan usoo furmo wuxuu leeyahay calaamadan balasta, wax kusoo dar upload, wax kusoo sameey waaye. marka balasa ku dhufanaynaa, uploada gelina, waxaa soo galerigeena iyo waxaana kasoo qaadanaynaa. markuu saan yimaado dad waxaa jiro memarahan iyo taleefanka gudihiisa maskaxdiisa storage kusoo bixinaynin. saddexdaas calaamadood taabanaa. hardin haddaa dhaho hardin iga saarmayso, marka oo ku aqarsoomaa show inuu ku ahdo waaye. marka folderka hareysa raba raadinaa. haddaan waxaa hareynaa insha allah folderkan ku qoran tahay ama documentkan ku qoran tahay dhalasho. waa kana sidaas ayuu noogu jiraa oo folderkii upload ugu sameynay. marna kaama baxaayo folderkan hadda noogu qoran dhalashada. haddii ay mobilka gmailkeeda ka kici mobil kale waan ka heli karaa isla documentigan. waxaa soo furaynaa, waxaa u baahan tahay si sawir u kaydsato gmailka ugu xirato photos oo ujeedid noocan ah. marka waa soo furaynaa, waxaa rabaa sawirka keedii lahaan ku dhufanaa. meeshaas oo ay ku qoran calaamada upload ku taalo aad taabanaysaa. waa kaa markii waa kaasaa markaas calaamadaas kale soo baxday. sawirka kale calaamadaasaa saaran. haddii aad ku dhufato upload oo naqnaa waa ku kaydsamaa. waa kana waa kaas calaamad dhan ma lahan. marka sawirka gmail ku xirnayn calaamadaas uu leeyahay. haddaa ku dhufto upload waa kaa upload oo dhahmaa. marka calaamad waa ka tirmee. saas ayaa sawir loo xareystaa. ama waxaa sameyn kartaa automatic saari kartaa. markii sawirka iska qaado kale oo backup ku sameeyo waxaa ku dhufanaysaa halkaas. waxaa ku dhufanaysaa photo setting, waxaa ku dhufanaysaa backup. halkan ayaa fureysaa gmailka ay backup ku sameynaysa ayaa dooranaysaa. waa kana marka sawir kasto markaa iska qaado ama taleefkaada oo soo galo automatic gmailka ayuu kugu xirmaa.